gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ee Somaliland ayaa ka hadlay rasaas lala beegsaday gaariga uu lahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Cumar ayaa warkan soo diray. Barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo oo saaka warbaahinta kula hadlay xafiiska maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka hadlay shaqaqo maalimadii shaato ka dhacday mid kamid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer isla markaasna ay waxyeello ka soo gaadhay qaar kamid ah gaadiidka ay wateen. Barsaabka gobolka Togdheer sidoo kale taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Togdheer waxaana uu gudoomiye ku-xigeenku sheegay in shaqaqadaas ay ka dhalatay deegaameysi ay wadeen qaar kamid ah dadka deegaankaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisii saas maxay tahay niman dhalinyaro oo wax ma garata ay maxay tahay ay ku rideen gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta iyadana wax weyn runtii oo iminka la sheegi kara ma gaarin waxa uu dhimayso dawladnimada ee sharciga dawladda ayaa wax kasta ka sareeya cid walba burcabadeed oo meel gasha ama maxay tahay burcaduleel ha haato ama دعيس أبو شيء وح مقرتها النقطة دقام بحدا يحلق قبنا بيد الله الكريم وبركذا ودقامس صبرنتي سير أبنه هي يعني جمهورية دينا دولة وحي ممنوع ضي دقان عصب إن الصميم بركة دقان عصب يبركذا السمين يجي أركاسي وقدعي من كان إن شاء الله تعالى أركاس مال في عام المريا سفكرت يا يعني كله إن شاء الله دقان عصب ويا deegaan cusub oo imka la asaasayo weeyaan meeshaan deegaameysiga waa laga joojiyay shanta sano sheegay sida hore waa meel deegaameysiga laga joojiyay oo dhul daaqsimeeda marka imika on baa la soo cusboonaysiiyay dabcan waxa laga yaabaa dadku inay u arkeen inuu deegaan cusub hore deegaan cusub inuu ahaa ee hore marka waa meel cusub weeyaan oo imika la baabi'inayo. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Cumar telefishinka caalamiga Somali News magaalada Burco.